بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد waxaan rabnaa inaan fahanno conceptiga ah the time value of money. The time value of money waxa waaye waa concept finance ah. Conceptigaas oo sheegayo markii waqtiga uu sii socdo in lacagta qiimaheeda uu sii yaraanayo. Example, 8 sano ka hor halkii koob oo shaah qiimihiisu wuxuu ahaa 1,000 shilin Soomaali ah. Hadda oo aan taagannahay koobka shaahiga meesha ugu yar ama qiimaha ugu hooseeya waxa waaye 3,000 oo shilin Soomaali ah. Example-kan wuxuu ku muujinaa in mar walba uu waqtigu sii socdo in lacagta qiimaheeda ay sii yaraanayso. In lacagta qiimaheeda ay sii yaraanayso waxaa laga wadaa waxa waaye lacagta wax goynteeda inay sii yaraanayso. It means waxa waaye halka koob oo shaahi ah 8 sano ka hor 1,000 shilin oo ahaa, laakiin hadda isla koobkii oo shaahiga ah qiimihiisa 3,000 oo shilin Soomaali ah waaye. In hadda si kale u sheego waxaan leenahay haddaad 3,000 haysan lahayd 8 sano ka hor 3,000 waxay ku goon lahayd 3 koob oo shaahi ah. Isla 3,000 oo shilin Soomaaliga ah hadda waxay ku goynaysaa hal koob oo shaahi ah. Tan waxay ku cadeynaysaa mar walba waqtiga sii socdo in lacagta qiimaheeda ay sii yaraanayso. Marka waxa waaye the time value of money waa conceptigaas ku sheegayo markii waqtiga uu sii socdo in lacagta qiimaheeda ay yaraanayso. Si kale hadda u sheegno waxaan dhahaynaa the time value of money waxa waaye concepti ku sheegayo xiriirka ka dhaxeeya lacagta, waqtiga iyo qiimaha. Waxaan dhahaynaa waqtiga hadduu sii socdo lacagta qiimaheeda sii yaraanayo oo ah lacagta wax goynteeda sii yaraanayso. macnaha haddii 8 sano ka hor oo koobkii shaahiga uu ahaa 1,000 shilin hadduu ahaa, isla koobkii shaahiga ah ayaa wuxuu noqonaa lacag 1,000 shilin ka badan oo 3,000 noqday. macnaha waxa waaye wuxuu ku tusinaa meeshaas in lacagtii qiimaheeda uu sii yaraaday. marka waxa waaye haddii waqtiga uu sii socdo lacagta qiimaheeda sii yaraanayo waaye. si kale hadda u sheegno waxaan dhahaynaa haddii uu qof ku dhaho 100,000 shilin Soomaali maan hadda ku siiyaa ama 100,000 oo shilin Soomaali aan ku siiyaa hal sano hadda kadib kee dooran lahayd. markaan fiirino conceptiga la dhahayo the time value of money waa inaad doorataa 100,000 oo shilin Soomaali in hadda lagu siiyo. sababta u dooranaysid waxa waaye the time value of money oo ah 100,000 oo shilin Soomaaliga hadda aad qaadanaysid waxa uu ku goynayo hadda hal sano hadda kadib ama ku goynayo. macnaha idminas waxa waaye 100,000 oo shilin Soomaaliga saacad haddaad ku iibsan kartaa hadda waxaa suurtagal ah ama xaqiiqaba ah in isla 100,000 oo shilin Soomaaliga hal sano hadda kadib inaysan ku goyn karin saacadii ku goyn karin. marka waxa waaye waxaa kuu fiican inaad dooratid 100,000 oo shilin Soomaaliga inaad hadda qaadatid because of haddii aad dooratid hal sano hadda kadib lacagta qiimaheeda dhacayo ama sii yaraanayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.